حسن علي خير ماشي أشياء رئيس الوزراء كهيد بعد أديكو عيال يوم وريال صغار شركان قراعيو دكتور كده حصل أديكو قايلين يشركان سوترت شيخ شريف ما أنت ما وح عربتها حمر أنت دجال كري دودتك على اللي يرد الهوية إنما كوك عيسيد إن هذا مركي حمر دولي وضع كسير ترقل قرن مايو سيدات البدي قرن مايو أنا عبد الشكور هدي أدماغي قدرتي فدول دول سيد حسن علي خير هي صادق شون كي كواه رجع كواس هذه كدلي كواس كامل لا صدق حضي بيجي سروق لها كويس فلان أوجا سجالات هذو ميل ضيعان سيحلو أما وصولنا كوكري حرق نسويها يصبد وحماطات دبي كواس عطاء سعي قابية كما نحتاج سوف كويله عطسي تعوضها قيمك بدن وفضلا فلو يليك بيت كسارو سيادوها شد كور كستوري وربحنا كل قليا ما تسني شيخ شريف بان شليتا مدحوينه laga dhigay maxaakiimtu amarkooda ku aamintay iyo dhalinyarada Soomaaliyeed mikrofon baa adigoo basaas ragii aad madaxweynaha waxa la daba gashay oo xabashi iyo Mareykan iyo Yuhuud iyo Ingiriis u basaastay markaas Cabdullaahi Yuusuf hiiro iyo kana inoo basaasay aynu Cabdullaahi Yuusuf ridno oo kan qaadano kana basaasay ilaa iyo kuuda ilaa iyo baydhabo baa ragii aad adigu madaxweynaha waad basaasnimo la daba socotay mikrofon la daba socotay aad gaalo iyo Mareykan iyo diyaaradaha gaalada wadato aad dhalinyarada Soomaaliya ku basaasay dalkii baa lagu dhiibay Cabdullaahi Yuusuf oo qiimale oo qable oo waqtigiisii dhamaan bay gaalada ku shaqaysan maynaynu iska leexino kan u dhiibano kana mudeeco waa lagu dhiibay 4 sano ka bacdi baa waxa lagu yiri badii Soomaaliya meeday garan ma ayaa tiri maanta ma waxa rabtaa xamar inta dagaal ka ridiyo dadka dhalinyarada hawiyenimo ku kicisid inaad hadhow markay xamar duntoolay wadanka sida tarogolayaad garan maayo sida tirbadi garan maayo ku suurtoomayso adigana si fiiga iyo taariikhda wataa xasan cali khayr waxa ku doortay waxa ku magacaabay madaxweynaha maanta jooga waxaan waa ku dhaaranaya waxaan naftiisa inuu ka kalsooni badna ka jeclaa waa laga aqli badiyay ragii kursiga lagaaga qaaday ee hawiya daarood bale baa ku yiri dawladdaadii la dagaalanayo madaxweynihii shaqadu ka wada dhaxaysay adigaan xilka ku dhiibana iskama aadan garan dawladdii adigu aad haysatay ee arrimo gudood iyo mid dabadeed iyo mid ciidan iyo mid abni iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale intaba adigu aad ka mas'uulahayd ee farmaajo miskiinka nabadoonka ahaa baad adigii basaasnimo ula dhaqaaqday oo wiilal daarooda oo ninka la yiraahdo Dani iyo Axmed Islaam ay kugu shaqaysteen ku yaan la dagaalanaga kursiga ku saaran kursiga adiga leh dawladdaadii baad basaastay ciidankii Jubaland rabay lagu qabto baad la hadashay Mareykan oo aad ku tiraadee baydankeeda leeyahay farmaajo wuxuu kula dagaalamayaa Axmed Islaam qabiil buu kula dagaalamayaa wuu ka qaldan yahay doorashadii adigu saxiixday adigu aad maamulisay بعد هدي أي ماشي أتكشف هذا وهدي أي لقمان كرني إياه هدي لقمان كرني أسي سبيش لو شيء هذه الدولة اللي كنت فاهم الهيدان بعد ميري هي اللي قاعد يكسر وحاسس سو تاكتي دورش وقت كذا أكون عدو ويا دي هذه كم مسؤول اللي قاعد بيه سيدا مركي لو استعماري أيها برلمان كي شلته كوان صحيح مركي كواركان بيصير هذا ودن كان لقى قاعد ما أظن أوراني اللي يرى باتاي نباتاي وحبرتي غلط بات سميسي عمل كاجي بالوكر باشي يا بل أنت دتك كله ويصير في قال شو ملها جايز كتشو كين يدي يعني شيء نبى أنت أو تكتب شوف كسرتي مجلسي مركزه فريق وصافر وحوي كيري أول حمل مدهرات كهري ماشي أشياء رئيس الوزراء كهيد بعد أديكو عيال يوم وريال صغار شركان قراعيو دكتور كده حصل أديكو قايلين يشركان سو تكت سو قرميس هذه كان يتعصم كلها نيك اللي يجري هذا أنا عبد الشكور قال كوريا قال كذا بنيك ودات كاين مدحوينها بعد وحكي شيء قسام واحد نكون هيس واحد كل اللي شان الله قرن مايو هدي أدماغي قدرتي فدول دون السيد هنا هذا ونكي حسن علي خير هي صادق شون كي كواه رجع كواس هذه كدلي هدي العلاد يدباتي وحسك عدي دولتي كواسا كامل لا اسكد عني كابان كلها الصوماليين waxaan leeyahay qoday dawladda caayda dawladda waa la caay karaa gelin maalinta markay wax wanaagsan waa la taageeri karaa markay wax caydana wax xumaysana waa la dhaliili karaa waa la toosin karaa laakiin haddii saacad kasta la maago
wax suuragala maaha oo aad moodid inay habeen iyo maalin caayda ummadda Soomaaliyeed iyo dawladdeeda ilaahay risiq inta qura uga qoray waxaan kuwaana u sheegayaa inay saddex awow ay si dayacan u soo koreen maantana ay caayda Soomaaliya ay rabaan inay ku noolaadaan suugaan bay Soomaalidu waagi hore wax ku cabiri jirtay sida xadiiska oo kale ninkii abwaanka wuxuu yiri saddex oday biyo suruq laha kuma safoobaan awowga sagaalaad hadduu meel dayacan seexdo ama uu saboolnimo ku koray xadhigna soo hayo subadii xumaata dib ay kula socotaa sicil gaabiya kama dhex tago soofka weeylaha luxakiir la wala gartaa looyadii siman ilaahay risaaqad wanaagsan u doonto ilaahay baa idin nooleeyay kala idin karaameeyay islaam idin ka dhigay muslim samac iyo basar idin yeelay dawladda Soomaaliya caydeeda iyo ummadda Soomaaliya qarankeeda inaad dumisaan oo maalin kasta aad muusan u la taaganteen caaya ka xishoodan leeyahay waxaan ogahay kuwa hadii afarta qabiil wax ku goobaabinaya oo hadii la caaw hawiyanimo wax lagu qaybsado aan shili ku helayn hawiyanimada oo ku qatan oo ku dulman hadii la yaaradnimo wax lagu qabsado daaradnimada aan waxba ku helayn oo afarta qabiil wax ku goobaabinaya waa siir xumo ay saameyn ay ku yeelatay siir xumada ay ka soo jeedaan